gudoomiyaha kormeerayaasha Wasaarada Waxabarshada ee gobolka Sanaag Axmed Ciise Siigo iyo kormeera Sare oo ka socday Wasaarada Waxabarshada iyo Tacliinta Sare ee heer qaran ayaa soo gaaray Dugsiga Sare ee Garadag Secondary School waxaana kulan la qaateen maamulka Dugsiga Sare iyo ardayda oo ay meel fagaara kula hadleen maamulaha Dugsiga Sare Salaad Jaamac madasha iba furay ayaa ka hadlay marxaladaha kala duwan ee dugsigu soo maray sidoo kalena macallimiinta iyo ardayda oo hadalkiisa kala dambeeyay ayaa sheegay kaalinta gobolka Sanaag kaga jiro Dugsiga Garadag Axmed Ciise Siigo oo isna ardayda u soo jeediyay hadallo dardaaran waano iyo dhiirigelin isugu jirta ayaa wuxuu maamulka Dugsiga Sare ku amaanay heerarka Dugsiga Garadag kaga jiro Wasaarada Waxabarshada ee gobolka Sanaag guniga gabagabadii Axmed Hurre oo isna hadalka qaatay ayaa bogaadiyay dhammaan bahda waxbarashada ee heer degmo iyo maamulkooda oo soo saaray arday tayo leh oo ka dhex muuqda dhammaan imtixaanaadka kala duwan ee Wasaarada Waxabarshadu qaado waxa halkan jooga kormeerkii gobolka kormeeray guud ee gobolka iyo xubno la socda oo ah emisama data collection hadii markaan warbixin kooban kaas idinka siiyo dugsigan marka hore waxa weeyaan badqabkiisu waxa weey wanaagsan yahay ilaahay xanuunada jira iyo waxa weeyaan COVID-19 waxaas ilaahay naga nabadgeliyay ardayda dhammaan caafimaadkooda markii aan u kurgalay way wanaagsan yihiin badqabka iskuulkuna wuu fiican yahay shaqadiisina waxay u socotaa shaqadii hawl maalmeedka ee caadiga ahayd kaasoo aan ku soo gabagabaynay hadeer taramkii hore 2020-2021 muhiimaduna waxa weeyaan waxaan markaas culays saaraa had iyo jeer inaan dhamayno manhajka ama syllabuska marka mudane bahda waxbarashada waxaan halkan kaaga soo jeedinaynaa inay markii aan ku sameynay kormeer istaba jooga ku sameynay habka waxbarashadu socoto waxbarashadu hadda waxay maraysaa 2/3 inay laba meelood inay baxday manhajkii loogu tala galay ee waxa weeyaan sanadkan inuu ku daboolmo taasoo waxa weeyaan dadaalkaas ay ku mahadsan yihiin macallimiinta dugsiga taana waxa weeyaan waxaan uga doorbidnay inaanu dardar gelino sida hadii ay mateen dhacdooyin kale iyo xanuunadaas iyo waxyaabahaas sidii sanadkii hore aanay uga dhicin ardayda aan uga dhicin maadooyinka uga dhicin waxa kale oo ka socda dugsiga qaybta supplementary-ga form 4ka oo isaguna xiisadaha gelinka dambe la qaato ayaa ka socda waxa kale oo isaguna dhinac socda ardayda kale sida form 2yada somewhere inay iyaguna ay leeyihiin supplementary hadda inkastaan joojinay ay muddo soo socdeen intaas waxa weeyaan warbixintii guud ee iskuulka wixii habshaqeeda ay u socoteen iyo nidaamkiina waxa weeyaan wixii naga rabtaana waxa weeyaan dib aynu isaga iyo wixii warbixin ay gaara aynu iska arki doonaa wixii carqalada iskuulku maxay tahay dhibaatooyin uu tabanayo baahiisa waxaan ku soo gudbin doonaa daatada ku soo gudbin doonaa insha Allah hadii la ka dhigo tii horena waan ku gudbinay Wasaarada Waxabarshada Kormeeray sameynayso iyo data waxa weeyaan sanadkiiba waxa weeyaan shantii sanaba mar waxa weey la dejiyo inay waxa weeyaan ayimka waxa weey ururinayaan marka waxa weey hawshooda iyagii waxay u socdeen insha Allah iyaga ka warrami doona laakiin waxbarashada iyo halkay marayso maamulaha ka warramay oo waxa weey meel fiican bay maraysaa taramkii hore iskuulka waxa weeyaan waanu soo gabagabeynaa insha Allah waxaan ku talagalay bisha 12 wasaaraddu ay ku soo saartay in imtixaankii inuu bilaabo saan ardayna wala soconaysan 12 bisha waxa weey sabtida inuu soo socotaa buu furmayaa imtixaankii half termka ahaa sidaa wala soconaysan weeyaan marka dadaalka waxbarashada ee ardayda iyo waxa weeyaan macallimiinta iyo intaba waxa weey aad iyo aad buu fiican yihiin sida laga warramay caafimaadka aad buu fiican yihiin marka ardayda waxaan kula dardaarmayaa inay waxa weeyaan wax akhristaan oo dadaalaan oo waxa weeyaan meel fiican meerayaasha oo noo yimi kollay ururinaya baahiyaadka dugsiga baahida ugu weyn aan u dirsanayna taabanaysa waxa weey buugta heema buukis in ay naga soo baahi tira marka waxa weey maanta waxaan idinku nimi horta inaan xogtii qaranka ee arday ahaan aanu idinka baahnayna iyo iskuul ahaan baanu idinka sii qaadno kormeerna idinku sii sameeyno runtii waxa weey qurux bay idinka muuqata iyo tacab la idin galiyay bay idinka muuqda waan uga mahadnaqayaa maamulka iyo macallimiinta iskuulkaba maamuluhu waanu saragnay in badan waa nin aad iyo aad maaragtay u soo jeedo inuu horumariyo waxbarashada iyo guud ahaanba degmada marka ka arday ahaan idinkuna way idinka muuqataa tacabkii la idin galiyay
intii aanu maraynay goob aanu soo aragnay waxaanu soo aragnay dad idin la mid ah oo waxa weeye aanayba intaasaa nambarkiinu leeyahay ay ahayd inay maqaranaysaa iskuulla ay ka bixi jireen 400 500 oo maanta ay 4 arday ka baxayaan taana waxaa nasiibkaa u yeelateen waxa weeye nabadda iyo deganaanshaha iyo horumarka taana inaad ku dadaashaan oo ilaahay lagu shukri noqdaan ayaan idin soo jeedinayaa haddaan idinka siiyo warbixin kooban barnaamijkan aan anigu u socdo kormeerkuna igula socdaa waxa weeyaan barnaamijka la yiraahdo xog ururinta qaranka hore hadda uu ogeydeen in ardaygu ilaa iyo maamulaha la yiraahdo kormeerka ama wasaaradda gobolka ay la soo hadasho maamulaha oo maxaa arday ku joogta maxaad baahi qabtaa ardaydaadu way misa waxa soo dhan xogtii nooca la isugu gudbin jiray telefoonka maanta waxaa nasiib wanaaga in laga gudbay oo aynu waxayniba noqotay ardayda jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhami ay system inoogu wada jiraan oo inoo record gareysan yihiin halka waxaan ku sidanaa waxa weeye dhammaan magacyadiini oo ah intiini ka soo bilowday maxay ahayd numberka galaaska labaad ilaa iyo form 4ka ee maanta halkan joogta kuwa maanta intii form 1ka soo noqdayna waanu sii diiwaan gashanayna ayagana marka waxa weeyaan xogtaasi waa xog record gareysan arday walba iyo macluumaadkiisii baa ku jira halku ku dhashay maxay ahayd waxa weeye cid uu la nool yahay telephone numberkiisii ilaa iyo telephone numberkaagii baa wasiirku hayaayo uu heli karaya arday walba inuu la soo hadlo oo awood kara ama waalidkii hadaanu isagu lahayn xitaa waa guul weyn oo aynu gaadhnay barnaamijkaana maanta hadii la ka dhigo wixii idinka khuseeya idinka xogtiina maamulahana waanu ka qaadanaynaa idinkana wixii aanu idinka marmoynaan hadii la ka dhigo aynu iska wareysanayna dhammaan baahiyaha iskuulka oo ay ku jiraan xitaa kuraasta oo ay ku jiraan sida ardaygaasiba sheegay inaad buugaagta ka cabanaysaan dhammaan galaas waliba iyo fasal kastaaba tirada buugaagta uu haysto resource-ka macallimiinta ilaa iyo waxa weeye adeeg kale ee dibadda aad uga baahan tihiin ee meelahan iskuulka looga baahnaa oo dhan wax walba uu dhameystiraya waana isagoo isku dhameystiran oo aan cidna la weydiinin oo maanta iskuul walba la hayo waxa weeye baahidiisu waxay tahay oo lagu xisaabtamayo mustaqbalka marka horta nidaamka wanaagsan waynu gaadhnay runtii waxaan idin kula dardaarmayaa dee sidaa aad idinkuba ka dhawaajiseen hore record wanaagsan baa ugu lahaydeen gobolka imikana waxaan filayaa haddaad dadaashaan cidina idinka qaadi mayso oo dadkii kale idinka qaadi lahaaba idinkula tartabi lahaaba waxa laga yaabaa badankoodu waxyaabo kalaaba lagu mashquulsan yahay halkana idinkaaba uu ah hormuud u ah marka degmada Garadag noqoto maanta idinka hormuud u ah dhamaantiin arday walba waxa weeye socdaalka iyagu wuxuu khusaynayaa inay tahay inaan wax isku xidhan wasaaradda waxbarashadu iyo nidaamka waxbarashada dalku uu isku xidhan yahay si fiican buu maanta isku xidhan yahay tuulo degmo gobol ilaa heer qaran marka arday walba waxa weeye xogtiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa waxa weeye marka xogtaasi hadii la ka dhigo ay xirooto waa lala socon doonaa marka qof walba ku talagal inaad position wanaagsan iyo record wanaagsan uu halka ku galo oo aad noqoto qof alkhaaqiyaadkii iyo dabeecadihii iyo aqoontii looga baahnaaba qof leh numberka halkan serial number buu leeyahay arday waliba code number baa ugu qoran codekaasi waxa weeyaan ilaa iyo heer jaamacadeed buu la soconaya ilaa iyo heer jaamacadeed ayuu la soconaya oo ka hari maayo macna codekaasi marka waa sumad gaar ah oo ardaygu leeyahay ugu dambeyntii hadalkii waan badiyay waana iga dambeeyaan madaxdii wasaaraddu waxaan u idinkula dardaarmayaa sida maamulkiina iyo macallimiintu idinku heegan yihiin wasaaraduna ay kormeerka ugu daba joogto iyagana ay maanta sida maamulu sheegay way yar tahay iskuul 3 meelood oo 2 meelood dhameeyay ka fargareeyay wixii looga baahnaa iyadoo taramka horeba uu imika gabagabeeyay maanta halka waxaanu u joognaa oo aan u nimid xog ururin iyo manhajkii halka ka maraysaan iyo baahiyaha dugsiga ku gadaaman iyadoo horena aan idinku imid mar la idin soo saaray mar aan la idin soo saarinba ayaan dhawadna kormeer aan idin soo diray ardayda form 4ka sida galabtii wax loogu dhigo la eegayo la qiimeeyay intaas oo ujeedada aan u soconaa waxa weeye ardayga adiga aan dhalay ama waalidkay aan u nahay inaanu oga xog meel ku ogaano
duruufaha ku gadaaman annagoo og haddana dalka waa ka nasiib qabtaan wallaahi dalka waa ka nasiib qabtaan maxaa yeelay waxa weeyaan waxaynu garanay ama reer Garadag ay garteen nabaddu waxay tahay dugsiyadii idinka dambeeyay markaynu eegno ceelafeeno kale waan ooyaa wallaahi billaah taala waan ooyaa sababta waxa weeyaan 500 baa dhigan jiray 400 baa dhigan jiray 400 walaal ay haayeen maanta wax ka jooga konton kama joogaan 20 kama joogaan waxa weeyaan dibta waxa keenay waxa weey waxaas keenay dayaca keenay nabad xumada keentay marka waxa weey idinka waxaan ilaahay idinku mahadnaqayaa gobolka waxa u sidaan magac haddii aad tihiin degmada Garadag haddii aad tihiin foonfoorka magac baa u sidaan sababtoo waxa weeyaan gobolka Sanaag marka la eego meel ay 9 arday ama 10 arday ay ka gareen jaamacad ka gareen idinka jirma beentay baa soo runtay maaha waxa weeyaan waana kasbateen waxaan ugu kasbateen oo noo soo jiidateen wanaaga idinku sameyseen waxa sameyseen gudiyaa leedihiin waxa sameyseen malcaaya iskuulo wanaagsan baa leedihiin halka anigoo jooga oo aan ogahay Allahuna ku siixigana waa hesheen alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa weeye taas maxay keenaysaa isku duubnida isku duubantiin wanaaga wadaan xogta la ururaya waxa ka sheegaysaa yaani ardayga hadeer foonfoorka ee aad aragtay cawo aadan dhiilood maaday soo ma joogto waxa weyn xogtaas waa xogtii bariga leedka ururiyay taas ni arday walba halkaas ugu jirtaa ID card buu leeyahay arday walba deeqada arday walba ID card buu leeyahay ID card-ka maxaa looga jeedaa in ardaygaas la og yahay halka uu fadhiyo maanta ardaygaas in la og yahay maanta halka uu fadhiyo ardayga soo bedeshay waxa weeye bedelkii hadhow la oran jiray gobolkaasi mariyo taasi mar waxa weeye computerka laga eegayaa ma ku jira mise kuma jiro waraaqan iska sii qori jiray waxa soo dhamo waxa weeye qofkii xogtiisa oo dhamaan lahayaa xogtaas kula soconaysa ilaa iyo maxay ilaa jaamacad hadeer waxaan ururin inta banaan oo dham waxa weeyaan wax xog adiga laga doonayo waan maamulahan ka wareysanayno telefoon numberkaagii cidaad la joogto waxa soo dhamaan ururinaa macluumaadku maxaa looga jeedaa imtixaankaas waa imtixaankii qiimeynta ee la ururiyay barigidood la ururiyay ninka aan ku jirin hadeerba yu ku talagelin ama form 2 ha ahaado ama form 3 ha ahaado waa inay aad leedahay qoraal aad leedahay wax systemka iskuulka ku soo gashay waa inuu jiraa taas oo qodob chance kana ayna iska luminin waxa weeyaan waalidkeen waa dugtiin tacabku inagu qabo waa dugtiin habeen iyo maalin leeno ordayo mid tamaandho yar loo iibiyo mid xanjeer la isugu dhashiyo mid ma meel loo ordo waxaas maxaa looga jeedaa mid macallin loo ordayo anigoo de macallin baan oo de kuwan ordayaa idinkoo kala waxa weeyaan waxaan loo ordayaa loo kalaasayay waa idinka idin leedo kalaasayay barwaaqada iyo liimaanta aynu ku jirnaa ilaahay aynu ugu shukrinaqno wanaageena aynu ilaashano jaamacadii ba halka leeno garsaya degma caankaas oo wali jaamacad dhisatay oo hadana si la yiraahdo weeye lama arag yaani waxa weeyaan goboladii hadeer la magacaabay baan lahayn ayna baan lahayn ood weynaan lahayn waxa weeye waa dadaala idinku muujiseen dadkuna dalkooda iyaga dhista magaaladeena waxaan doonayaa inaad dhisataan waxa la doonayaa inaad horumar aynu gaarsiino waxa la doonayaa in kuwa kale jiilka dambe inaga inaynu u shaqeyno taa waxa lagu keenayaa nabadgelyo lagu keenayaa wanaag baa lagu keenayaa qurux baa lagu keenayaa wadagtoo laamigi maanta markaan ka soo kalo ceergaabo 7 waa kula joogaa haddii alla yiraahdo 7 halkan ka sii qoraalaya xisaska waa kula geliyaa waa kula sii shaqeynaya haddana gurigeyga baan dib ugu noqonaya maxaa keenay wanaagaan waxa keenay qaranka keenay dawladda keentay madaxweynaheennii hore Allah adaayay ayaa inoo sabab u ahaa in Sanaag ay horumarka yeelato Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa sabab inoo ahaa in wadadaasuna ugu dambeyntii kormeerayaashan ayaa odminu soo maray fasalada ugu kooban yahay dugsigu Abdi Salaad Jaamac Garadag